سؤاشن waxay leedahay assalaamu calaykum su'aashaydu waxay tahay qof baan heshiinay kadibna waalidka ayuu iga doontay waalidkana way ka cagajiideen wax shuruud ah ay ku diidan yihiin ma aqaan mana ku arag ma raaci karaa maadaama ay waalidkana diidan yihiin ma iska raaci karaa waalidka waxaa laga doonayaa marka hore sida nabigeenu salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu tilmaamay hadduu idin yimaado ruux aad diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli ku tihiin u guuriya baa rasuulku yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi gabdhihiinna u guuriya haddaad u guurin weydaan fasaad weyn baa dhacaya waalidku marka waa inuu ilaaliyaa halbeega iyo miisaanka uu wax ku qiimaynayana uu ka dhigaa akhlaaqda iyo diinta qofkaasi ma dhaqi karaa gabadhaas akhlaaqdiisa iyo diintiisu ma wanaagsan tahay intaa hadduu waalidku qiimeeyo asbaab sharciga uu ugu diidi karaana aanay jirin waalidka waxaa laga rabaa inaanu diidin haddiise waalidku uu diido asbaab hadda sharciga oo muuqato oo uu diidayna aanay jirin ha la baxsan ninka ha la baxsane waalidka raac ilaahay subxaanahu wa tacaala sayajcalu allaahu bacda cusrin yusra isagana gabadh reerkoodii u diidan yahay hadduu xataa la baxsado oo sharcigii uu khilaafay uma noqonayso haddii ilaahay ku rumeeyo oori iyo muxuu ahaa qoys maxaa yeele qoysku guurku wuxuu isu soo dhoweeyaa bulshada marka ha raacin hana la dhuumanin talada waalidkaa yeel wallaahu aclam su-aasha xigta waxay leedahay sheekh hadda ka hor gabadh walaashay ah ayaa nin meher xaday kadibna way inkirtay waxayna guursatay nin kale ma dembi baa diintu maxay ka qabtaan bay ka wadaa hadda ka hor gabadh walaashay ah ayaa nin meher xaday kadibna way inkirtay way inkirtay kadibna waxay iska guursatay nin kale ma dembi baa arrintaas bismillahi raxmaan raxiim meher xadku ama guurka qarsoon wax jira maaha inuusan jirinna idinkaaba sheegayba waa xatooyaad ku tilmaantay oo xatooyadu ma waxbay xalaalaysaa yaa xadaad xoolo xaddo ma xalaal bay kuu noqone may xatooyo wax ma xalaalayso sidaas daraadteed xatooyo waa xatooyo hadday xoolo gasho iyo hadday gabadh gasho guur gashaba xatooyo waa xatooyo guurka xatooyada ah ee nikaaxu sirri culimmadu u yaqaanaan sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay nikaaxu sirri baatilun bilaa khilaaf guurka qarsoon wax ka jira ma leh layskumana khilaafsana marka khudbasireed iyo waxani laalaabkani wax jira ma aha xalaalna lalama dhuunto lama qarqarsado midna inaan kala saaro waa laga maarmaanoo mid bay ku khaldan Soomaalidu guurka la leeyahay khudbasireedka ee tuugaysiga ah ee aan banaanayn guntamaynin waa midka laga qarsado gabadha ehelkeeda laga qarsado waligii guurin lahaa markii laga qarsado waxba kama jiro haddiise laakiin gabadha weligeeda laga guursado markhaatiyana loo sameeyo laakiin maslaxa mucaayana ay ku heshiiyaan yaynaan bannaanka geynin ayagu maslaxada ilaashanayaan marka waa guur sax laana markhaatiyadiina waa haystaa dadkeediina waa laga guursaday arkaantiisii waa haystaa
ka marka looma yaqaano khudbad siro looma yaqaan ka waa ka gedisan ka khudbad sirada waa ka lagala dhuunanayo waliga lagala dhuumanayo iyo dadkii gabadha guurin lahaa wax jira ma aha guur saxana ma aha hadday gabadhu sidaas samaysay kadibna ay inkirtay oo nin kale guursatayna xataa hadday qiratayba nin kale guursan kartay hadday inkirtay nin kale guursatayna way xili kartaa laakiin waxaan rajaynayaa inaysan mar labaad aynan xatooyada ku noqonin laana mushkiladu haddaad barato oo kan xad haddana kan xad gacan muxuu ahay maxay dhihi jireen yacni gacan wax qaad baratay haddii la jaro xataa gumudkaa dhaqdhaqaaqay dhahan waxaan marba haddaad barataba lagaa kari maayo adanu mid kale adoo xadahayo maa lagu arka sidaas daraaddeed gabdhaha muslimaadka waxaan dhihi lahaa guurku wax sahlan maaha ka fiirsada wax qarsoon ayaan laydinku sirin ninka ku qarsaday ee ku tuugaystay nin dhaqankaa raba maaha masalada ogaada waa nin doonaya habeenay inuu kula seexdo ama kugu dangaadho wabilaahi tawfiiq kaa danayso laakiin ninka dhaqashada kaa raba geedkaad soo fuul tidhahdaba wuu soo fuuli maxay dhibay ku haysaa aabbahay ama adeerkay soo weydiisay inaad tidhahdo hadduu nin wax rabay soo ma marka masaladaas way inugu badan tahay in la iska ilaaliyo oo la iska jiro way wallahu a'lam hal qodob baan ku dari lahaan ka halmaamay hadday guurkan dambe markay guursanayso hadday ninkii hore is arkeen waa inay ka cidda tirsato waa ninkii hore hadday is arkeen oo guurkii qarsoonaa ay isku arkeen intaynan kan dambe guursanin waa inay ka cidda tirsato oo 3 dhiig ay marto 3 caado inay soo marto waa 3 caado markay soo marto kadib bay nin kale guursan karta laakiin iskama guursan karto markaa maxaa yeelay waxba isku qasmayo markaa wallahu a'lam waan bal soo gabagabaynaynaa hal su'aal ayaan ku darnaa su-aasha waxay leedahay ninkaygu wuxuu cunaa qaadka wuxuuna dhahaa waan dayn doonaa mana daynahayo la joogitaankiisa diinteennu maxay ka qabtaa inaan sii wada joogno sii wada noolaano diintu maxay ka qabtaa sheekh cabdiqaadir qaadku inuu xun yahay saa'iladu iyadaaba sheegtay inuu dhibsanayso haddii aanu salaadii iyo cibaadaadkii kale iyo tiirarkii kale islaamka dhaawacaanu u geysanayn salaada uu tukado kolay nin qaad cunayaa salaadiisu galabgalab bay noqonaysaa salaadii uu tukanayo furitaanka waxbaa ku degdegin laakiin u naseexee qaadkan madaradiisa iyo dhibtiisa isna wuu dareemi adiguna dareensii haddii naseexadaas iyo waanadaas markaad waaniso istimraar iyo waanina aad ku samayso qaadkii uu ka joogi waayo ayna sababto marxaladda qaarkood ragga qaarkood inay ilmahooda caanahooda iyo biilka ay haddii ilaahay kuu ronyay u wadaan ay qaadka siiyaan xataa mas-uuliyaddii ubadka iyo haweeneyda ka saarnayd ay lunto marxaladda hadduu gaadho haweeneydu xaq bay u leedahay inay madaxeeda weydiisato haddii markaa uu fasixi waayana ehelkeeda iyo qaraabadeeda ka fasaxaya wallahu aclam wax yar baan ku dari lahaa sheekha intuu sheegay waxay tahay qaadka uu cunayo ha ugu kaalmaynin gacan ha ku siin maxaan ka wadaa hadduu gurigaaga qaadka ku cunayo gogasha uu qaadka ku cunayo ha u dhigin shaaha uu qaadka ku rugayana ha u soo karin ha ku caawinin bimacnaa waxaa kala gedisan wuxuu isagu wato iyo inaad adiga gacan ku siiso khaladku galayay walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan dembiga iyo xadgudubka ha isugu kaalmaynina
shaahiisii iyo qadadiisii iyo gobashiisii kale iyo hawlihiisii kale waa kugu leeyahay u diyaari laakiin mid khaas ah qaadka loogu talagalay oo special ah ka iyada gacan ha ka geysan wallahu a'lam su-aashaan kusoo khatimayna waxay tahay gabadh adeerkeed la noolayd oo adeerkeed uu meheriyey oo nin uu ku meheriyey aabaheedna uu nin kale siiyey islamana joogaan aabaheed nin kale ayuu siiyey laakiin gabadha waxay la joogtaa adeerkeedna nin buu ku meheriyey marka maynan is ogeyn marka diintu maxay ka qabtaa sheekh maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim horta adeerku gabadhu adeer u yahay aabaheedna nool yahay ma meherin karo wuxuu ku meherin karaa inuu wakaalad haysto oo aabe uu idmay oo yiri gabadhii way kula joogtaay hadii la soo doono guuri hadduu idanka isagoo haysta uu gabadha saa ku guuriyo labada guur mid ka horeeya saxa laana kana wakiil buu ahaa waa guurin karay kana waa asalkii oo uu guurin karaa hadday sidaa tahay labada guur mid ka horeeya sax ee hor dhacay haddii adeerku isagoon wakiil ahayn oon idan haysanin uu gabadha guuriyey aabaheedna isagoon ka warhaynin uu guuriyey guurka aabbaa sax ah ka adeerkana waxba kama jiro laanna wuxuusan lahayn buu ku tasarrufay xaq uusan lahayn buu ku tasarrufay iskaba dhaaf adeer iska dhaafe walaal baan ku tasarrufi karin oo awow baan ku tasarrufi karin aabba intuu joogo gabadhiisa looma gacan dhaafi karo allahumma inuu isagu idmo oo u fasaxa mooyaan sidaas daraadeed guurka aabbaa saxa hadduusan adeerku fasax iyo idan haysanin wallahu a'lam